walaalayaal arag sida magaca oo uu isku bedelo haddii aad adduunka ku aheeday ganacsate brofesor xildhibaan wasiir waxaa rabtaba dheh qofku markuu adduunka joogo intaasoo taytal ayaa loogu yeeraa markii la rabo in wax la weydiiyo ama la waco. waxaad maqlee xildhibaan wasiir hebel aad maqlee muga hore xildhibaan u ahay kabacdi wasiiru isku bedelay muga labay taytalo wataa ama wuxuu ahay dictoro horu ahay wuxuu noqday wasiir dictor wasiiraad maqleen laakiin magacaas wuxuu isbedelaa qabriga intaan la gaarin. magacaas wuxuu isbedelaa mugi aad bukato ee aad mariisho adigoo waaga nool ayaa magaca isbedelaa. oo maxaa lagu leeyahay almariilki ka warama, almariilka cawada wuxuu ku baryay, arbukaankii ka warama, arbukaankii ma jarmaatay, arbukaanka wuxuu joogaa, arbukaanka suu yahay. mujeedaa magacaagi waa isbedelay, magacaagi waa isbedelay. jaa wasiirkii aad aheeday, xildhibaankii aad aheeday, ganacsatadii aad aheeday, ninkii magaca lahaaye aad aheedo dadka maqaayada soo galo loo kala rogsan jiray kursiga oo shanta dalab loo keeni jiray adoo weli nool oo jiifo oo waaga aan qamrigii lagu geyn ayuu isbedelay. mujeedaa adduunyadu waa taas, adduunyadan waa nacalaqabtada ah ee waqtigeyna iyo khayrka ilaahayna seejisay meel kale ka goobin. waa intaas qofkii asoo weli nool waxaa laga yaabaa qofkan inuu saddex dhakhtar lahaa jiray ila qofka mugooga lacag leeyahay dhowr dhakhtar uu leeyahay. hal wuxuu leeyahay raashinkan cun, hal wuxuu leeyahay raashinkan ha cunin, hal wuxuu leeyahay waqtigan seexo, hal wuxuu leeyahay waqtigan ha seexanin, hal wuxuu leeyahay jimicsiga qaabkan u qaado, hal wuxuu leeyahay jimicsiga qaabkan ha u qaadanin. yani dhowr dhakhtar uu leeyahay oo qofka mugooga lacag leeyahay la socoto. laakiin qofka mugow seexdo oo uu bukoodo oo asigoon weli dhiman waayaa dhaqaatiirtaasoo dhan waa ka herayaan. maxaa yeelay wuxuu cuni karaaba iska yarba. haddii la yaraha cun wax ma cuni kariyo, haddii la yaraha jimicsi aadi ma kariyo, waa bukyaa. haddii la yaraha meelahaasoo kudkudi ma kariyo. muga waxaasoo dhan iyo magacaasoo dhan iyo xoolahaas aad xalaal iyo xaaraan aadan u aaba yeelin ee aad ku keentay seegalow biyosaan ku keenaba aad ku keentay oo aad ilaahay wejigiisa raalli ma oga yahay saad ku keentay iyo aadan u damoonin ee aad u damootay xaan cunaa waqti waxaan ku jirnaa laleeyahay xaan cunaa oo xalaashi iyo xaaraanti waxaa badan xaaraanti. run ahaanti zamanka aan ku jirno xalaashi iyo xaaraanta waxaa badan xaaraanta, waxaana degdeg badan xaaraanta. waxaa degdeg badan oo haddaad fiiriso hadaad qof wax weydiisatay aniho waxaanan kaa rabaa isii waxaa laga yaabaa qofki wixii waa xalaal inuu ku siiyo laakiin waxa laga yaabaa inuu ku yiraaho haye bal foogtaan aan ku damooha amba uu ku yiraaho bal saacad ii kuro. laakiin haddaad istiraaxa xaaraan damooso waxaa laga yaabaa guri xoogaa ballaqan amba dukaan laga kala tegay inaad markiiba ku gudday wax kasoo hesho. waxaa muga oo ku maamulayo ee xaaraanta kuu fududaynayo waa ibliis, waa shaydaan waxa xaaraanta kuu fududaynayo. ee xalaasha iyo xaaraanta xalaashu markasta way ka fududahay xaaraanta wayna ka caddahay. ina alxalaala bayinun wa ina alxaaraama bayinun wa baynahumaa umuuru mushtabihaatun. muga aan ku dadaalno intaan nool nahay inaan xalaal cunno, aan ku dadaalno intaan nool nahay daacadda ilaahay damoo. haddana mugaad ka tagto mariilkii oo aad dhimato maxaa laleeyahay haddana mawdka naga duuga, mawdka hala qaado. xataa la dhihi maayo xoolihii oo intaas haystay bal xoogaa ha ag joogee bal xoogaa dhowr $100 oo kale ama dhowr $1,000 sariirta ha loo kor saaro. qofkan waa dhintee bal naxashka ha loo kor saaro inta qabriga laga geynayo xoogaa ha ku bejiye la dhihi maayo. haddana qofkan waaba la duugee intaasoo xoolaha uu leeyahay qofkan $1,000 bal qabriga ha loo gelsho bal sahay ha looga dhigo la dhihi maayo. kule waa u malaynaa waa aragtee mawd la duugaayo maradaas cad waxaan ka ahayn laguma duugo. baabuurka qurxoonaay haddii alla kuu ron yahay kobihi uu shala soo gatay, haddii alla kuu ron yahay xaasaska wanaagsanaayo quraacda iyo qeedada iyo cashada la cuni jiriyey, ilmihii uu dhedheersii jiriyey. laa tuliikum amwaalukum walaa awlaadukum, ilmihii oo dikriga ilaahay ka mashquuliyey. noloshii dhaldhalaalkii ahayd arkaysoo dhan hal in yax looga darima. hadda waa ninka taajirka xataa la dhihimaa ninka waxay biilka soo socdo mushaarka oo bisha soo dhacaayo ama haddii alla kuu ron yahay ganacsiga hadda maqano imaahayo dubay kusoo xiran bal waxbartooda ha laga daba diro ha sheegin. tazawaduu fa ina khayra zaadi taqwa wattaquuna ya ulil albaab. zaad qaata oo sahay qaata, sahay la qaatana $1
iyo diinaar iyo dhar iyo baabuur iyo guryo intaba ma ahan. maxay tahay? fa ina khayra zaadi taqwa wattaquuni yaa ulil albaab. alla ka cabsiga ilaahay ayaa ugu horeeyo uguna dambeeyo. zaad la qaato oo ilaahay lala hortago. maxaa yeele ilaahay mugaad hortagtid ku dhihi maayo adduunka xaad ku haysatay. waa ku dhaha dabcan wixii aad adduunka ku haysatay waa kugu xisaabiha, laakiin intaasoo xoolaa ninkaas maas ku haystay hadda hala dhaafo, ama inta lasoo waco loo soo diro. si haddaan ognahay qofku hadduu waddan kala tago ee baahi qabato xawaalada u tagaa wuxuu leeyahay lacagtaasaan rabaa halaysoo diro. laakiin mugii mahaas la tago waa dhammaatay. xawilaadaan shaqayhayn, western unionaan shaqayhayn, haddii alla kuuran yahay bangiyaan shaqayhayn, haddii alla kuuran yahay ibaalaan shaqayhayn, imbaasi waxaa rabta dhe adigu. haddii mar aakhiro la tago waxaa shaqayhaayo wixii kuu horeeyey oo aad hormarsatay koow, iyo wixii aad ka tagato dad ilmo khayrka jecel oo wanaagga jecel uga tagato aad tiraaho iisoo duceeya, amba aad sadaqa jaariya meel uga tagato, ama aad cilmi naafica oo aad dad barto. wanaaggaas taas waa akoon, taas waa socotaa, taas kama hadlayno. laakiin xoolihii aad ka tagtay oo aad tiri xoolahan waxay ku fiican yihiin adduunka iga leexda oo aad ilaashatay, macquul maahan in lagaa soo daba dilo. bal iskaba dhaafe, waxaa laga yaabaa gabadha aad ka tagtay xaaskaagii maalmo ka bacdi in shukaansi lagu bilaabo oo layidhaha ruba raaqiban fiiki, ruba raaqiban fiiki. arey ninku rabo badana ma ujeedaa? ninku rabo badana xoogaa waxa waaye shukaansi dadban waaye. wadaadkii xalow dhintay inuu sanadaaba laga yaaba hala korta ma jirto, qabrigiisi weli ma duugeysan, hala korta ma jirto. iyaduna waxay ku leedahay haye waad ku dambayn doonaahay, bal ilmaha kaale ilmaha madax u xiir, kaale ilmaha u dhaani, kaale ilmaha beerta u shub, beerta u waraabi. muga waxay ku tusihee sharaf darrada ay tahay ay qabta adduunyada aad ku dhajiyo hayno. haddii aad aakhiro aado adigoon waxba kaa horeyn waxay la mid tahay adigoo tiri jid weyn oo haywey ah oo baabuurta kore bari u maray aan ku lugayha. macquul maahan. xadiidku waatou ahay man dakhala alqabra bilaa zaadin fakaanamaa rakiba albaxra bilaa safiina. qofkii qabri galo asigoon jiscin wadan oon sahay wadan waxau la mid yahay qof bad dhex galay asigoon doon wadan. way adagtaa inuu ka badbaado. xataa haddaad dabaal taqaanid, dabaasha waxaa laga yaabaa inaad saacad aba nusko saac isbadbaadiso. laakiin haddii lagu yidhaaho 2 saac ama 3 saac ama 4 saac ku jiro bad, mustaxiil waa inaad ka badbaado. ilaahay waa awoodiyaa, wuu kaa badbaadi kariyaa, laakiin loogama baran. wuxuu iri hebelow goormaan kuu imaha asoo iri mugii qoraxda soo baxda io imaad. muga asoo iri haddayna soo bixina asoo iri yaa loogama baran. muga waa adag tahay haddaad bad gasho oo aadan doon wadan inaad badbaado. waxay la mid tahay inaad qabri gasho adigoon waxba kaa horeyn ay la mid tahay. muga aan isku dardaaranno taqwada ilaahay. taqwada ilaahay waxaa waaye dadka qaar waxay u maleeyaan cibaadada wax weyn oo culeysa. dabcan culeys way tahay oo naftu ma rabto, oo culeys way tahay oo naftu ma rabto inay cibaadaysato. laakiin haddana cibaadada meel kale haba ka raadinba. abidardaa xaaskiisa mugii la wareystay waxaa la ka waran muxuu ahay sow ahay cibaadadiis. waxay tiri wax dheeraada oo dadkan ka duwan ma samay jirin, laakiin wuu fikiri jiray uun bis. ilaahay cadamadiisa, ilaahay waxdaaniyadiisa, cadaabka, jannada, howlahaasuu ku fikiri jiray. maalin saacad, maalintii 2 daqiiqo, 10 daqiiqo, waxaad awoodda adugu. muga fikirkaas aad ku fikirto ayaa ilaahay kuugu dembi dhaafa. maxaa yeelay waxaa tahay qof fikiraayo oo wax ka maqan yihiin. haddaad awoodi weyso inaad daala kuran yahay 5 salaadood ka badan dukato oo aad sunno awoodi weyso, culeys male. 5 salaadood duko, asqaafaarta ku dar. haddaad awooddo sunno ku dar. haddaad wax sadaqayso weyso oo aad awoodi weyso inaad wax sadaqaysato, adkaarta ilaahay. haddaad adkaarta ilaahay aad awoodi weyso, jidka waxa ka qaad. watamyadul adaa can dariiqi sadaqa. markii dadkii oo faqiirinta ay yidhaheen dadkii maalqibeyntii way naga tageen, way naga ajir bateen, wixii aan baxsano ka badan ay baxsahayaan, wixii aan cibaadadeena ka badan ay cibaadaysahayaan, maxaan samaynaa? waxaa la yidhi
حديث هو حديث دير وهي وحال ليري وتميد الأذى عن الطريق صدقة حديث كجول وحجيتك كقادين صدقة يدينتها وأمر بالمعروف صدقة هذا أمرك الوناق فرتين صدقة يدينتها والنهي عن المنكر صدقة haddii aad u timaadiin xaasaskiina oo aad habeenkii gobashiina timaadiin sadaqa idiintaa bal ka waran ina xaajadaadii gudatay ayaa waxaa lagu leeyahay sadaqay kuu taha xaamuga u gudahii dhinaca kale waxaa kala jiree mugga dhinaca xaaraanta ah iyo dhinaca xalaasha labadaba waa iska gudasho labadaba waa laba xaajo gudasho laakiin waa kala ajir badan tahay waxay lamid tahay adigoo shaqeeyey 8 saac soo shaqeeya beriga ee aadan stamlin sameeyay anigu waxaan naqaanaa qofka mugoo shaqeeyo meel mar la garaacaa jirto oo la leeyahay waa shaqeeyey ogow qofka koro meesha xafiiska fadhiya u sheegay lambarkaasaa garaacee xafiiska ninka fadhiya wuxuu arkaa inaad shaqaysay mushaarka kuu soo diraa haddii aadan garaacin lambarkaas beriga waa shaqaysa laakiin mushaarku ma lihid xoog doofaar lagu raaco waa mugga saasoo kale lamid tahay haddaad ba gogol sameeyhayso midda lambarka ah sameey oo lagu ogi oo lagu soo diraayo aakhiro xaa kugu raaca midda xaaraanta on aakhiro lagu soo direen oo weliba cadaab lagugu bedelayo haye wax waa cune wax waa wada cunaa laakiin midba wax cunayso nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam haddii waxa aad cunaysiin aad u niyeysatiin ajir iyo inaad khayraadka u kaashatiin ajira ka helaysiin muga ajir u niyo inaad khayraadka u kaashato u niyo intaad u niyo laheeday inaad qaajada isaga biiso haye waa sheekayeenaa sheekada aan sheekayeenno isku mid waay qof aad sheekay wala maaha inaad migo qof xamato inaad sheeko caadi oo mubaax ka sheekaysatid waa isku mid yani cuquubada ilaahay isku mid uma ahan laakiin haddana labadan sheeko danta ah ka leedahay waxay tahay inaad waqtiga isku dhaafiso muga tan oo waxba lagaaga qorayn oo mubaax iska ah amba khayrka iska ah waqtiga isku dhaafi intaad isku dhaafi laheeday mid dembi iyo haddii la qorayn cuquubo ilaahay lagaaga qoraayo مثلا واسكو تمدان ganacsiga adduunka BBC waxay sheegtay banooniga ka warrama waxa isdhiga sheeko caadi oo mubaax ah oo yani oo aan ajirna lahayn dembina lahayn iska sheekay haddaad mid ajir leh aad sheekay kartana ta ugu fiicanba way taaba laakiin haddaad meel fadhiisato meeshaas aad fadhiisatay waxaad fadhiisatay adigoon deyn lagugu lahayn maalan 10 daqiiqo sheekaysay 10 daqiiqo waxaad ka sheekaysay xan waxaad meeshii ka tagtay adoo deyn lagugu leeyahay oo buux laakiin haddaad ajir wax wanaag keenaya aad ku sheekaysato oo aad khayr akhriso waxaad meeshii ka kacday ayadoo ilaahay agtiisa khayr lagaaga kuu yaalo oo kolagii aad maaha la timiday oo walax ku jiro haddii aad xumaan aadan ka sheekayn wanaagna aadan ka sheekayn oo sheeko caadi oo mubaaxa aad ka sheekaysana kolagaaga waxaad qaadatay adoo marnay adoo macnaha oo maran waxba ku jirinba muga tan ugu horeyso ugu wanaagsan waa inaad kolaga wax ku shubto tan ku xigtana waxa waa inaad waxba sameynba oo adoo eber meesha ka tagto tan ugu dambeysana waxa waaye inaad ayadoo wax lagu leeyahay oo deynaysan aad meel ka tagto ma jeclid dad baabuurka meel ku baarkinto aad meel dan ka soo dhameysato nus saac amba saacada aan maqan tahay in baabuurka warqad ganaax lagu saaro ilaan baarkin qaldanaad dhigtee ma jeclid waxaad jeceshahay baabuurkaaga oo amniya oo nadiif ah oo saawa tagta ah oo warqad ku saarnayn inaad timaado muga saasoo kale adigu ha jeclaanin in adoo deynaysan aad ka tagto meesha aad tagtay ha jeclaanin adigoo deynaysan oo deyn lagugu leeyahay inaad ka tagto ha jeclaanin markaad meel tagto khayrka ilaahay ku akhri haddii aadan awoodin sheeko caadi oo mubaax ahoo ama shaqaalaha ku saabsan ilaa meel mugala wada shaqeeyaha miisa la wada fadhiistaa ama shaqaalaha ku saabsan ama haddii aad ku roon yahay ku saabsan adduunyada iska caadi ah ka sheekeey oo waxba lagaaga qorayn waxna aadan ku lahayn haddii aadan intaas sameeyhayn waxba yani hadhiin iska fadhiiso koobshaha iska cab dantaada ka wado ama digri ilaah iska akhriso laakiin xumaan meeshii ha ku samaynin maxaa yeelay haddaad xumaan ku samayso waxaa tahay nin meel fadhiistay ee idoo deyn lagugu leeyahay oo meeshii ka tegey waa fahantaa malayna walaalayaal muga ilaahi subxaana watacaala waxaan ka rajaynaynaa inuu aakhiran suubanna siiyo waxaan ka rajaynaynaa insha allahu tacaala la kulan wanaagsan waxaan ka rajaynaynaa insha allahu tacaala weji qurux badan
يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم والعياذ بالله ما أنت أصبح واي ما أن وجي عديهين إيا ما أن وجي مدويهين واي وجي وحيكو عديهين إن كرينك إيا ذلك ورنها دي أنت كان أو هذا الله مرصده معهن إيوا سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله استغفر الله استغفر الله استغفر الله بلغة waxaad dhigi kartaa kumanaan kun ka badan nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam fa inni atuubu mi'ata marratin في اليوم يعني حديث او اساس laftigiisa waxaan tooba keenaa uu yiri boqol mug maalintii boqol mug anu waa jarribay boqolkaas mug oo nabigu uu yiri 24 saac ay naqanay maalinta hadii la yiraahdo amba habeenka iska dheer anigu waa jarribay waxaan ku dhameeyay 10 daqiiqo ku dhameeyay 10 daqiiqo ayaan ku dhameeyay intaas 10 daqiiqo maxaa yeelay isku darbaaday haddaad rabto aayad soo qabso oo maxaa la dhahaa aayad quraan ah ربنا إنك من تدخل النار ربنا إننا سمعنا ربنا هذا ترى ربنا هذا سكلي وحالك قولي أفر أجرا كل هذا ربنا هذا سكلي أفر أحكي هذا أو من طبعا أفرتنا أجرا كل هذا معايا قرآن أهانة وآخر شيء وردي